بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أنا مقعيقة ومحمد علي عمر عانوب وحان هاي حلبان قولها شعبك برلمانك كوي تمنات runtii maanta waxaan ku faraxsanahay inaan shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed intaba aan mar labaad u cadeeyo inaan ahay murashax u taagan gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka wuxuu ka mid yahay gudoonka baarlamaanka waana xubin aad muhiim u ah waxaa igu dhaliyay inaan gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka aan maanta iyo muddo dheer baan ka soo shaqeeyo kaambeynkiisa iyo howshiisa waxyaabaha igu dhaliyay waxaan ka mid ahaa baarlamaankii 8aad waxaan ka mid ahaa baarlamaankii 10aad haddana waxaan ka mid ahay baarlamaanka 11aad muhiimadda uu leeyahay gudoonka baarlamaanka iyo awoodaha uu leeyahay ayaan wax badan ka soo ogaanay runtii maadaama uu yahay baarlamaanka institution aad u ballaaran ama dowladda Soomaaliya ay tahay dowlad parliamentarian ah runtii dalkaanu muddo dheer wuxuu ku soo jiray dowladis haddii uu hagaago hoggaanka baarlamaanka oo baarlamaan sharciga wadanka dastuurka ama xeer hoosaadka si hufan ugu shaqeynaya haddii la helo waxaan aaminsanahay waa raanweyga diyaaradda ay ka kici lahayd inay halkaas tahay oo hay'adaha kale oo dhan ay hagaagayaan waxaan rabaa dadku waxay iskula joogaan sharci waxaan leenahay dastuurku meel gaar ah oo Soomaali ku heshiisay baarlamaanka wuxuu leeyahay xeer hoosaad aniga marka hadafkayga iyo go'aankayga waxa waaye khibradda iyo aqoonta baarlamaanka aan u leeyahay inaanan ku shaqeynin maskaxdayda wax ka soo go'ay aan ku shaqeeyo dastuurka dalka iyo xeer hoosaadka golaha